heesta qasiruntii ku fadhiday kulay qofkii dhageystaaba waa hees dareen waxaan ku ku salaysan oo aan anaga laftarkeyguna aan ku qaadnay dareenkeedii wadata waa hees horta anaga noqosaysa oo qisa anaga ah ayaa laga sameeyay and heestaas waa hees aad noogu qaaliya bismillaahir rahmaanir rahiim kulanti waxaan dhageysiyaal halkani waa radio Harwanaag oo aad ka dhageysataan barta internetka ee harwanaagnews.com xiisaha kalgacal naftaydan ku xeertay xanaaniyo korin habboon inaad tahay gabadh xishood anaa ku xaqiijiyey hadnaan ku xaashadaa يا سلام أفكاك عانا لغو قبي ربما إني حشوت كبركي تهي وحا هوري وغمركاي أبوان محمد حاشي دمع قاريه ومان سديسي فات قلبيت كيري تيو قرايسكيو مرتدب عقرو دو قراناي صوهوبان oo aan geeyaankeed geesaha ka filanayna dabayshii gadoodee uurkayga garatee gaadmada ku qaadee gosho iyo horaadkiyo gaadada u faydiyo garbadubka maraday durbagabis ku siisiyo gabashada xishoodka ah goroday lulaysiyo ugubnimo gandoodkii yaa salaam haddaba markuu fanaankii ku qancay inantii uumaankiisu raacay kuna tiraabay inaad tahay gabar xishoota anaa ku xaqiijiyey hadmaan ku xalaashada waxay inantuna ku tirtirsiday xiisaha kalgacal naftayda ku xeerayo xanaaniyo korin habboon waxaa tahay inaan xishooda inaan isxalaashanana xawdi amba waan rabaa يا سلام انت كدب dhageystayaal waxa xigayba waa hamigoodii oo Ilaahay u xaqiijiyay iyo noloshii oo ay wadaageen waxaana xubbiga iyo kalgacalka isku hayaan uga soo burqaday heestan ay darandooriyayaan miyaan keligii lada eeda luladon gam'a miyaan anigu baaliqa afaaciga laasima الله حوقي كالقعل وفوري لابتيو بوبو إشانكا لبقسنين يسار اللولي ذا جعين سيدو أدبقولو أني غاي ليليا يسار اللولي ذا جعين سيدو أدبقولو أني غاي ليليا وقاها لغو جوك سديو لحادكي قاطهي هلومين وحي هلومين حسكيو قرشادا لديو لقيو بيركاته هلوميني وحي هلوميني يا سلام dhageysta wali ma islahayd heesahan oo kale ayaa wali dhexmiranaya maanka abwaanada fanaaniinta laxamiistaha iyo musiciankaba waxaan ku leeyahay filo hana ka fogaanin hoygii fanka muddooyinkan dambe dhageystayaal waxaynu maqalnaa dhagaheenana ku soo batay heesa la kala xaday iyo fanaanin isku raran oo is haysta waxaanay arrimahaasi noqdeen kuwa xagaldaaciyey sawir guraacana ka bixiyey fankeenii hodanka ahaa waxaanse leeyahay uu dihin yahay fankeennuye yaan la dayrinin bilaa calaykum bal u fiirsada fanaaniintan aadka u da'da yar ee ku sugan dalkeenna hooyo iyo heesahooda oo marka aad dhagaysato aad xasuusanaysid waayo iyo qiimihii fankeenna waxaanan mar kale leeyahay waa gaaxdii hargeysa gaawaha u soo culo bal haddaba dhegaystayaal aynu ku soo dhowaano barnaamijkeenna meeshii waa hargeysa waana hoygii suugaanyahanka sidii horeyba loogu qiray hadaloo riyaaqiyo hawraarta mansada
halkaran qadarin loo heenseeya gabayada halku eebba dhigayay Hargeysa inna haybadaadiyo hibo eebba ku qoray habeenka ma qaadee qoray bay abwaaniyo qobollo ku amaane Hargeysa beyga qoboladiisiyo heesaaga caan baxay rugtii lagu habeeyey fanku heer ku gaadha hooyigii martida iyo hooyadii abwaanka heestaasi uu qaadayo fanaanka caanka ee reer Jabuuti ee Cawaale Yare waxay ka mid tahay heesaha faraha badan ee loo qaaday Hargeysa aan horay haddaba uga sii socdo goobtu waa xaafadii Sheedaha ee waqooyiga magaalada Hargeysa waana kulankii ugu horeeyay ee dhex maray fanaanintan ugubka ah ahaan iyo fanahaanba waa Mursal Muuse Cumar iyo marwadiisa Khadrah Cabdi Sinimo waxaanay caawa marti inoogu yihiin barnaamijkeena fanka iyo sugaanta ee Radio Harwanaaga bal haddaba aan idin kala baxo filantaan jeclahay bidaan aragtidaadii bal haddaan ku caashaqay baadkiya barwaaqada labadaasi fanaan ee lamaanaha ee aan idin soo sheegay waxa weeyaan Mursal Muuse Cumar iyo Khadrah Cabdi Sinimo oo sidaan idin soo sheegay ah lamaane da'yar oo fanaaninta waqtigan ee madaxa la kacay waliba kamid ah fanaaninta haatan lagu jecel yahay ee reer Soomaaliland ku soo dhaw marka hore Mursal Radio Harwanaaga aad baan ula dhawahay kulay bal iyadoo in ku dambayn doona Khadrah ee waxaan jecel ugu horeyn inaad noogu furtid hees kamid ah heesaha lagu jecel yahay heesahayga runtii waa heesa aad u fara badan laakiin haddii aan mid hal door ku soo qabto waxaan ku soo qaban lahaa hees la yiraahdo Ilwaad dhageystayaal heestaasi Ilwaad nala dhageysta riixani ilwaadi maxabay lahdaydiyo iga ba'ay dantaydii riixani ilwaadi maxabay lahdaydiyo iga ba'ay dantaydii dadkoo seexday badankii maxaan kugu boqdaa barta aad ku nooshahay dadkoo seexday badankii maxaan kugu boqdaa barta aad ku nooshahay goor caddeedu aanay soo bixin bal maxaan aroortii ku idha ma barideen goor caddeedu aanay soo bixin bal maxaan aroortii ku idha ma barideen bigi waa haweeno ragga kii bastiye u dheri sidiisii boholyowga caashaqo wadnihiisa beegsaday basar maadu garataan basar maadu garataan basar maadu garataan bigi waa haweeno ragga kii bastiye u dheri sidiisii boholyowga caashaqo wadnihiisa beegsaday basar maadu garataan basar maadu garataan basar
يا سلام runtii mursal heestani waa hees aad iyo aad u qiimo badan heestan yaa erayadeeda sameeyay ereyada waxa iska leh abwaan cabdixakiin cabdilaahi jibriil oo lagu magacaabo qiiq laxanka waxa iska leh cabdi ismaaciil axmed beele muusigana macalinkayga axmed weli ibraahim furne waa sida heestan ilwaad heestan sidee kugu soo gashay adiga runtii heestan ninka la yiraahdo beele ayaa muddo hayay heestan didna anagu waqtigaan kulanay aan isbaranay ay kamid ahayd heesii igu casuumay oo isii sida darteed heestani saasay gacanteeda ku soo gashay bal imikana aynu gudubno khadra ku soo dhawaarto marka hore radio Haruna aad baan u dhawaynaa khadra ay adigu caawa maxaad jeceshahay inaad barnaamijkeenan aad inagu furtid waxaan jecelahay in aan ku furo hees ugu horeysay ee aan markan fanka la kowsaday aan la sameeyay goorma markaasi waxay 2008 dabayaaqadeedii way heestaasi maxaa la yiraahdaa heesta waxa la yiraahdaa igu ladan ama 100% jeer mid la soo bandhigi karo caashqo ka badan ajiib bal heestaasi aanu dhageystayaasha hadaba u soo gudbino Yeelkii uu nugulaa barashada baxadagiisiyo waliyowga gocashada Yeelkii uu nugulaa barashada baxadagiisiyo waliyowga gocashada halkagu beri samaadkii hadba baal markuu rogo halkagu beri samaadkii hadba baal markuu rogo ballantii kalgacalkii oo bidhaan aragtidada u baanta naftayde halkagu beri samaadkii hadba baal markuu rogo halkagu beri samaadkii hadba baal markuu rogo ballantii kalgacalkii oo bidhaan aragtidada u baanta naftayde boqolkiiba boqol jeer mid la soo bandhigi karo shaqo ka badanaa badankayga lagu ladhay wixii igu ladhan ee aniga igu ladhan boqolkiiba boqol jeer mid la soo bandhigi karo shaqo ka badanaa badankayga lagu ladhay wixii igu ladhan ee aniga igu ladhan ya salaam khadra heestan qiimaha badan erayadeeda laxankeeda iyo muusigeedaba balno faahfaahi cid iskale erayada waxa sameeyay abwaan cabdixakiin cabdilaahi jibriil laxankana waxa ku laray cabdi ismaaciil axmed beele muusigana waxa ku laray axmed weli ibraahim furne ya salaam isla su'aashan weydiiyay mursal heestiisa wad maqlaysay sidii ku soo gashay uu inoo sheegay adiga heestan igu ladan ee aad ku soo gashayba fanka ma hees waxay ahayd qiso ku fadhiday mise hees si caadi ah lagu dhiibay hees waxay ahayd leysii anigana sidoo kale hees aan midheedii iyo tayadeeda markaan ka helay anigu laftarkeyguna aan ka qaatay abwaanki waa sax bal hadaba aynu u gudubno hadana dhankan iyo u soo noqono mursal adigu fanka horta sidaad ku soo gashay runtii fanka yani fanku qofka bini'aadanka waxa la yiraahdaa wax ku abuuran anigana ilaa yaraanteedii waxaan ku soo barbaray anigoo music jecel didna fanka maadaama aan qof music jecelaha oo dhigiisa music ku jiro didna markastoon qof fanaana ama abwaana ama musician aan arko waan la saaxiibi jiray aad baan u jeclaa markii dambena waxaan isku qaaday inaan anigu fanaan noqdo sidaasaan fanka ku galay runtii mursalow heesaaga kuwa ugu dambeeyay waliba iyo de kuwii aad fanka ku soo gashayba dadku aad iyo aad bay u xiiseeyaan waxa kamid ah heesaha aadka loo xiiseeyo heesta la yiraahdo aroos meelay galaysa bal heestaasi anoo jecel inaad gadaal nooga sheegi doonto erayada iyo laxanka cidda iskale iyo waliba muusiga bal marka ugu horeysa erayadeeda wax yar naga maqashii heestan waxa la yiraahdaa aroos meelay galaysa heesta erayadeeda waxa weeye
awood ma laha aadmigu waa udub dhacayo ruuxna ooli maaye ramidan i hayse uurkayga gubaysa adoonii ogaanoon ilmadaaniga tirin urugada dhibtaan qaabo kama oon baxaye aroos mayla gelaysaa eryadeedu waa saa heesta yaa salaam dhegaystayaal bal heestiina iyadoo dhammaystiran kusoo dhawaada awood ma laha aadmigu waa udub dhacayo ruuxna ooli maaye awood ma laha aadmigu waa udub dhacayo ruuxna ooli maaye ramidan i hayse uurkayga gubaysa adoonii ogaanoon ilmadaaniga tirin ramidan i hayse uurkayga gubaysa adoonii ogaanoon ilmadaaniga tirin urugada dhibtaan qaabo kama oon baxaye aroos mayla gelaysaa dhitaan qaabo kama oon baxaye aroos mayla gelaysaa adduunyada waxay qaban ifka aad waxay tarin inan yahay haddii aad adduunyada waxay qaban ifka aad waxay tarin yadkaatood igu egtood oodii ogaanoon adi ku ildaranahay mursal runaantii heestaasi waxa weeyaan hees aad lagu bogay bulshaduna ay aad ka u jeceshahay waqtigan xaadirka kana mid ah heesaha aadka loo xiiseeyo heestaasi erayadeeda laxankeeda muusigeeda iyo iskale horta heestan waxa iskale nin aad igu qaaliya ahna nin aniga muddo fara badan fankayga gacanta ku soo hayay intaanan mudh aanan soo odhanayn soo shaacbixin
waxaa la yiraahdaa ninkaasi Muuse Cabdi Huno runtii meel kastuu joogaba imka waan ugu qaaliya aad baan u salaamaya laxankeedana laxanka isaga raaciyay Muuse Cabdi Huno oo waa nin kaminista oo mulaxana abwaana ah miisigana waxa ku laray macallinkayga Axmed Weli Ibraahim Maxamed Furule ya salaam runaanti miisigaasi aniga laftarkaygu waan iska sii kartay inuu Axmed Weli Ibraahim Furule uu iska leeyahay khadra bal adiga laftarkaagu waxa jirta hees kamid ah heesaha aad qaadid oo ah kuwa aadka loo xiiseeyo waana heesta Gayaan heestaasi waxaan jecelahay marka u horeysa bal inaad eriyadeeda wax naga yar maqashiis waa si wanaagsan waa Gayaan isjecelo kalgacayl guniya baan lagu gaasa bixiyo xalaal isku guursado waa Gayaan isjecelo kalgacayl guniya baan lagu gaasa bixiyo xalaal isku guursado silatimiya